taageer dowladdaada waayo waa sharaftaada. Dowladda uu madaxweynaha u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay iftiimisay in Soomaaliya sumcadeedii soo laaban doonto, waxayna ku socotaa si ay ka muuqato isfahan. Madaxweyne Farmaajo markii la soo doortay waxaa la filayay in uu xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabo rag caan ah oo siyaasadda dalka awood buuxda ku leh, waxaana lama filaan noqotay markii uu xilka u magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ah nin da'yar. Qof walbana waxaa soo jiitay markii uu sheegay in Xasan Cali Khayre yahay nin leh aqoon ku filan, yahayna qof wanaagsan oo ay wada shaqayn karaan. wuxuuna yiri isagoo sharaxaya sababta uu Xasan Cali Khayre xilkan ugu magacaabay. Rahmaan Rahiim, waajibaadka uu siinayo dastuurka inaan soo magacaabo ra'iisul wasaare markii aan arkay dalka inuu u baahan yahay si degdeg ah inaan ugu helno xukuumad kadib markii muddo dheer doorashooyin lagu jiray. waxaa ii caddaatay inaan magacaabo Xasan Cali Khayre inuu dalka ka noqdo ra'iisul wasaare, anigoo ku doortay inuu yahay shakhsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan, anigoo arkay in aan wada shaqayn karno. Sida aan wada ognahay, xukuumadihii hore waxaa caado u ahayd isqabqabsi u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, waxaana keeni jiray madaxweynaha oo farageliya shaqada ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha oo aan garanaynin awoodiisa inta ay la eg tahay. Balse dowladda madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ay ugu sarreeyaan waxay la yimaadeen falsafad ka duwan, waxayna ku wada shaqeeyaan ixtiraam iyo in qof walba shaqadiisa guto iyada oo aan la isfaragelinaynin. waxayna muujiyeen deganaan iyo wadajirnimo. Shacabkana waxay tuseen rajo iyo in ay jiraan rag ay ka go'an tahay soo noolaynta dowladdii Soomaaliya. Dowladda waxay qabatay waxyaabo muuqda laguna xusi doono weligood. waxay geed gaaban iyo geed dheerba u fuuleen ilaalinta shacabka Soomaaliyeed iyo sharafta dowladda Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo safarkii ugu horreeyay ee uu Kenya ku tagay wuxuu dowladda Kenya ka dalbaday in diyaaradaha shacabka Soomaaliyeed toos uga dagaan Nairobi halkii ay mari lahaayeen Wajeer oo shacabka Soomaaliyeed. wuxuuna yiri madaxweynaha oo arrinta ka hadlaya, wuxuu ahaa safar miradha ah oo keenay in dadka Soomaaliyeed oo mari jiray meesha la yiraahdo Wajeer oo lagu dhibi jiray, anigu xitaa aan kamid ahaa markaan prime minister ka ahaa oo aan qaadanay diyaaradaha shacabka, aan arkay dhibka ay marayaan dadka Soomaaliyeed
in ay dhibka la wadaagaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaa la soo celiyay ciyaarihii gobolada oo horseedi kara isdhexgalka bulshada. Dowladda madaxweyne Farmaajo waxay ku guuleysatay inay dib u soo celiso maamulka hawada Soomaaliya oo tan iyo burburkii ay hay'adaha shisheeye gacanta ku hayeen, waxaana laga maamulayay magaalada Nairobi. Waxaana munaasabadda xadhigga ka jaray madaxweynaha ayaa guushan u sababeeyay wada shaqaynta ka dhex jirta dowladda federaalka. Wuxuu kaloo sheegay in ay soo celin doonaan gacan ku haynta badaha Soomaaliya iyo inay gacanta ku dhigi doonaan. Wuxuuna sheegay in ay ka shaqayn doonaan ilaalinta xuduudaha Soomaaliya dhammaan. Qoraal kuma soo koobi karo waxqabadka dowladda, waxayna hagaajisay waxyaabo badan oo khaldanaa, waxayna ku tallaabsatay horumar aan horay loo gaarin. Dowladnimadu iyo nabaddu waxay u wanaagsan tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, laakiin ogow, dowlad la'aantu waxay u wanaagsan tahay dowladaha shisheeye ee danaha gaarka ah ka leh dhulweynaha kheyraadka leh iyo badaha istiraatiijiga ah oo uu Ilaahay ku manaystay Soomaaliya. Dowladahaasi waxaa jira dad khaasa oo ay lacag ku siiyaan in ayna dowlad iyo nabad ka dhalan Soomaaliya. Haddaba muwaadin, ogow, quwadda ugu weyn ee wax diidi karta waa shacabka. Noqo mid waddankiisa u gargaara, waxaadna taageertaa dowladnimada, waxaadna iska indhatirtaa qabyaaladda. Muwaadin, siyaasiga ha u taageerin in uu yahay reerkiina, ee u taageer inuu yahay mid u taagan taageeridda jiritaanka dowladda Soomaaliyeed iyo sharafta calanka Soomaaliyeed. Muwaadin, nabad baa nolol leh, dowladnima sharaf leh.